السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وناكسن دولة قيمة هي قدرين تي شرفتها نجم مدنا كسر دوادا وركنا قاشان ودني سومالي تي في وطبعا كابيشة ديسمبر سنة كوالا بكون يقوم يلا باتنا قد بدأ ورك أدا ودون تنعاون هدي الله ودروينا وقلادنا وحا غيب كام رئيس الوزراء مدن محمد حسين الرابلو حلي وكوفش المي عرما هذا درجين تدور شو كيدلك الصومالية قدوميها برلمان كالصومالية مرسل قلا شعبka mursal ayaa shir rasmi ah u qaadacay hanaanka loo maray xilka qaadista wasiirkii hore amniga xudubay isla markaana ka soo jeestay wasiirka cusub ee hata xilka loo magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligana si rasmi ah loo sheegay in xilka uu ku xayuubin doono ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble xaaladii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee wadanka Soomaaliya ayaa si toos ah ku soo gudbin doona dawladda qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta naga mudana haatana warkeeni oo faahfaahsan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mursal ayaa si rasmi ah u qaadacay hanaanka loo maray xilka qaadista wasiirkii hore ee amniga ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya xundubay oo si rasmi ah la sheegay inuu xilka uga qaaday ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana si rasmi ah halkaasna geesi kala qaadacay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku tilmaamay in aan shaqo sharci loo maray xilka qaadista wasiirkii hore ee amniga xundubay mursal ayaa farta ku fiiqay in oo xilligan aan loo baahnayn buuri in golaha wasiirada qaarkood xilka laga xayuubiyo isla markaana wasiiro cusub xilligan magacaabo waxaana gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ee federaalka ee Soomaaliya mursal uu sheegay in aan golaha shacabku ay si rasmi ah aysan u ansixin wasiirka cusub oo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble hanaanka doorashada Soomaaliya oo la rabay xilligan in si rasmi ah loo dirgeliyo ayaa wararka naga soo gaaray Muqdisho ay sheegayaan in hanaankii doorashada la rabay xilligan in si rasmi ah u qabsoonto ay xilliga ku jirta qalqal siyaasadeed oo aad u weyn madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna geesiisa qaadacay wasiirka cusub ee maanta sida rasmiga loogu dhaariyay wasaaradda amniga ee dowladda dhexe federaalka ee wadanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goordhow la filayaa inuu si rasmi ah xilka uga xayuubiyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble isla markaana si rasmi ah haata waxa la sheegay inuu arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya xilligan uu dirgelin doono madaxweynaha dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray in dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya in xilligan ay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho si rasmi ah amaankeeda loo adkeeyo xilli laga cabsi qabo in khalaas siyaasadeed oo xooggan uu ka dhaco wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah saraakiisha hore xilalka laga qaaday ayaa la sheegay inuu dalab xilligan u weydiistay ra'iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Roble oo xilligan ka cabsi qaba in xilka si rasmi ah uga xayuubiyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka faalado arrimaha siyaasadda ee wadanka Soomaaliya ayaa xilligan sheegay in ra'iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Roble uu ku fashilmay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha dirgelinta ee doorashooyinka ee dalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo gaargaar la yeeshay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka kula yeeshay aqalka Villa Soomaaliya ee Soomaaliya looga arrimiyay ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii hore loogu gudbi lahaa caqabadaha siyaasadeed soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Roble wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray caasimada wadanka Soomaaliya ee Muqdisho waxa ay sheegayaan in xaaladda bulshada aysan ahayn mid aad u fiican walow laga cabsi qabo in dagaal u dhaxeeyo madaxweynaha iyo sidoo kale wasaaraha dalka uu ka qadhaco caasimada wadanka Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo gaargaar la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dalka Soomaaliya isla markaana saraakiisha ku amray in ay iyagu ay ilgaar ku yeeshaan xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale caqabadaha xilligan ka dhalan karta isaga iyo khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble war qoraal oo ka soo baxay aqalka baarlamaanka hoose ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah loogu qaadacay hanaanka uu wax u wado ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble inaysan ahayn
lahayn hanaan waafaqsan dastuurka dhexe ee dowladda dhexe ku beelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana si rasmi ah ay u sheegeen qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inaan wasiirka cusub ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay in aanan si rasmi ah loo marin hanaanka sharciga waxaana ay sheegeen qaar kamid ah xildhibaanada aqalka sare aqalka hoose ee dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya in wasiirka hadda la magacaabay aan si rasmi ah xilligan aan loo ansixin madaxweynaha dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ilaa haatan ka hadlin khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xilligan la sheegay inuu aad u sii xoogeysanayo Roble oo xilligan cabsi weyn ka qaba in xilka uu madaxweynaha dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya Farmaajo uu ka xayuubiyo ayaa xilligan amray in saraakiil hore xilka laga qaaday oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gudaha u soo galaan caasimadda wadanka Soomaaliya ee Muqdisho ciidamada badbaado qaran oo kamid ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si rasmi ah uga amar qaata madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta badan waxaa la keenay isgoysida weyn halbalaha waa caasimadda Soomaaliya gaar ahaan soo galan filo Soomaaliya waxaa la sheegay in ciidamadu ay sugi doonaan ammaanka guud ee caasimadda iyadoo laga cabsi qabo in xilligan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilligan khalkhal siyaasadeed xoogan uu galiyo wadanka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wararka rasmiga caawana soo galaya geesta kale waxa ay aad u qeexayaan in khilaafka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo uu salka ku hayo Allah dhaxriista uu salka ku hayo kiiska marxuumada Ekraan Tahliil oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ilaa haatan aan lahayn waxa jirta in kiiska Ekraan Tahliil uu dhaliyay in mas'uuliyiin xilka laga qaado qaar kamid ah golaha wasiirada qaarkood xilka laga xayuubiyo khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa ee dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku hayo khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu salka ku hayo kiiska Ekraan Tahliil oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo ilaa haatan war sax ah laga soo gudbin kiiskeeda oo ilaa haatan aan gacanta lagu haynin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furay laamaha ammaanka inay si rasmi ah kiiska Ekraan ay warbixin kooban xilligan si rasmi ah looga helo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Farmaajo oo kulamo gaargaar la yeeshay saraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kala hadlay xaaladda siyaasadeed Soomaaliya in xilligan la dejiyo isagoo madaxweyne Farmaajo xilligan amray saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya inay sugaan ammaanka guud ee caasimadda wadanka Soomaaliya warbixinteeni aad garoosday shabakada wararka gaashan wadani Soomaaliya TV dhageystayaasha iyo daawayaasha qiimaha iyo qadarinta